السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan rabaa inaad la wadaago ciwaan ku saabsan ama mowduuc yar ku saabsan waxbarashada. waxbarashadu waxay iska leedahay qiimo ay iska leedahay. qofka wax bartay iyo qofka aan wax baranina iyana sidoo kale muxuu ah waa laba qof aan isla ekayn marna aan isla ekayn. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن كحكو شيغيا كوا وحق iyo kuwa aan wax ogeyn miismayhin jawaabtu waxay noqonaysaa labada ruux islaama eka marna ma sinaan karaan. marba waxa muhiim qofka inuu leeyahay cilmi oo qof wax og uu yahay waa muhiim. haddaba su'aal waxa jirta tacliintu iyo waxbarashadu ma wax qofka calooshooyadii uu kala soo baxay miyaa mise waa wax qofka dadaal uu dadaalay iyo juhdi uu sameeyay uu ku gaaray. su'aasha ayada aad bay muhiim u tahay. ilaahay subhanahu wa ta'ala arinta ayada uu inoo sheegay. ilaahay wuxuu leeyahay ayada quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. ilaahay wuxuu leeyahay qof waliba calooshooyadii wax uu ka soo baxay isagoo aan waxba garanayn la ta'lamuna shay. xitaa isagoo aan ogeyn يعني ماشي يعني هويدي وكنوغي لها حتى isagoo aan ogeyn ayu dhalaanka yarka caloosho ka soo baxaa. waad ogtihiin isagoo aan waxba garanayo soo bax. marka ma jiro ruux tacliinta la dhashay ee calooshooyadii kala soo baxay ee isagoo dhakhtar soo baxay isagoo injineer soo baxay isagoo bara soo baxay marna ma jiro walaalayaal. qof waliba muxuu uu dadaalay dadaalkii uu dadaalay iyo alla ka cabsigiisa ayuu ku gaaray martabada maanta muxuu qof walba uu gaaray. maadaama sida ay tahay waxa muhiim inaynu wax barano waa muhiim. waxa kale oo meesha ka baxaya anigu waan gaboobay muxuu xilliga waxba ma baran karo taa ayadaana muxuu waa wax qaldan oo aan marna saxayn walaalayaal. nabiga wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam cilmiga raadiya ilaa qofka laga soo bilaay isagoo markuu yar yahay ilaa ilka laga dhigo ilaa xabaash lagu geeyo waxa rabo qofka inuu wax barto muxuu ahaa uu tacliintii cilmiga uu raadiyo aad bay muhiim tahay walaalayaal. imaam shaafici rahimahullah يا إسجنا إسجوا محوها ويلير ولا هذي وحكيري تعلم يا فتى فالجهل عيب ولا يرضى به إلا حمار. إمام الشافعي ويلك اللي راه وحكيري ورمت كاجن اللي يرضى أهو وحبر محايا للجاهل لماذا وعيب قف إنه جاهل ونقض أو وحوها جاهل ويه وحبق السنجرين وعيب مركز ويري ولا يرضى به إلا حمار جاهل لماذا وحرالي كنقض حمارك دمارك برالي كنقض مركا محوها قفك وحا مهم إنه وحبرته جاهل لما وصن رالي كنقض لكن داد محوها عاد نقط قف أن وحبا آخرين وحنا أن قرن إسكا قنعسن إسكا النور هذا نقطيد مركا محوها وحصح ما هو لا القف والبحر إنه وحبرته مركا تعليمته سداس أي مهم تاعي شاعرك لا محولاي هي تعلم وليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. شاعرك وحوليها وحبرة محايلة وحبرة شدي تعلينته روح على شو يدي كلا صباح مجرو وسدس قف على شو يدي كلا صباحي ومحو يسقوا وحي قانا ليش مجرو تعلم وليس المرء يولد عالما يعني قف لدلي يسقوا عالم مجرو وليس أخو علم كمن هو جاهل. قفك محو عالمك أي محوها قفك جاهلك أهنا محوها مرنا ضد إسلائك أو إسلاسي من مرنا من نقون كرا ولا مركو حا مهم قفك إنه wax barto waa muhiim. haddaba wax marka su'aashu waxay noqonaysaa si aan dhamaanteen wax qof walba inuu wax barto maadaama uu jecel yahay oo muxuu ahaa qof walba hadii la raahdo jaahil ayaa tahay maanta qof ongal ma jiro. jaahilka laftiisa markii la raahdo jaahil baa tahay maanta ma yeelay. imaamuna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu leeyahay kafa bil ilmi sharafan an yad'ihi man la yuhsinu وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه. في الإمام علي رضي الله عنه حلايه يعني وحا تعلينته هي محوها علمك وحا شرف وفلا إن وشاكتو قفان علمك وناجنين يعني قفان علم الهين يا شيغاني وحباكي الرادو
cilmi uu leeyahay ama sheekh ama tutor makla uu iska farxayaan laakiin muxuu ahaa jahliga waxaa muxuu ahaa ugu filan xumaan iyo muxuu ahaa wakafa bil jahli dhamman waxa jahliga la waxa xumaan iyo wax walba ugu filan in qofkii jaahilka ah laftiisii markii la jaahil baata inuu ka bari noqdo uu diido oo yiraahdo jaahil maahay marka fiir cilmi waa sharaf waxa qofka uu yani uu ku gaari karo martabad weyn uu ku gaari karo waa cilmiga marka cilmigaas la rabaa in qofku uu raadiyo nabi wuxuu leeyahay qofkii mara wadadaas cilmi uu ku raadinayo ilaahay wuxuu u sahlayaa wadadii jannada ilaahay u sahlaya marka waxa muhiim qofka inuu cilmi u yeesho tacliin u yeesho muxuu wuxuu ku gaari karaa wadadii jannada marka walaalayaal waxa rabaa naftayda tiini inaan u daarmo inaan wax barano oo wax barashada aan laga caajisin ummaddu waxay dhibaatada ay kaga bixi kartaa waa wax barashada iyo qofka inuu cilmi u yeesho cilmigu waa midka kaliya ee qofka badbaadin kara fi dunya wal aakhirah marka waa inaan noqonaa dad cilmiga barta marka si aan cilmiga u barano oo dad cilmi laan u noqon waxaan u baahanahay si ilaahay cilmigu noogu sahlo ilaahay cabsidiis taqwa allahi tabaaraka wa taala ilaahay in laga baqo ilaahay muxuu leeyahay subhanahu wa taala wattaqullaha wa yuallimukum allah ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay ka baqa dad ilaahay ka baqdaan ilaahay wax barashada uu idin sahla isaga idin baray wattaqullaha wa yuallimukum allah ilaahay ba idin baray marka qof waliba oo jecel inuu wax barto kali waxa sameeysa kali ilaahay ka baq ilaahay cabsidiisa ku dadaal waxyaabaha xaaraanta iyo foolxumada iyo waxa ka fogow maxaa noqonaysa ilaahay isaga ku baray subhanahu wa ta'ala oo waxa noqonaysa qof cilmi leh ilaahay cilmigu u sahla laakiin adagoo foolxumadii ku dhex jira oo wax walba wasaq ku dhex jira yaad rabtaa haddana muxuu ahaa inaad xigmad iyo cilmi ilaahay qalbigaad uu galiyo ma dhici kartaas ayada imaamu الشافعي رحمه الله رحمة واسعة يا وحليه بيت شعر وحكليه وحال الشيخ إمام الشافعي ومال ود الصامرين يا وحال الشيخ وحو أرك هويني دي دباشيا مرضي كفي دي مركز وحال الشيخ لقطة إنه أركي مركز وحفر بدن وحفظي أو حفظ سنة يو إلا بإمامك مركز وحو تج الشيخ يسول يجري وكيع ابن الجراح اللي يجري وتج مركز أور موحوي وحليه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي إمام الشافعي وحليه وحنقول الشيخي وحنقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي وحنقول شاكتي إن يعني حفظنتي إن حماتي يعني الشاكي مالفيري شيخ محوق فأرشدني إلى ترك المعاصي وهنوني إن حماتي يفعل حمي سكتكم سوكله وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي سوكله وحوق الشاكي أو إيه شاكي يعني علمي إنه يهي النور يفتين إنه يهي علمي إيه شاكي نور كإلهي قف عاسي أهل مسي لو مهديه مركا فيري قف وسخ محوها ذنبي فربضان له مجرم دنبيل فالحمد أي محوها معاصي كل حجرة افتين كأي نور كإلهي قلبي جيس مجلي وحأوبها أنت مركز علمي أوبرته عاد حكمة ويالتها وحأوبها أنت هاي إنها تكفجت وحول بوف الحماها إنها كفجت ومهم ولا وحبرش ونسأل لانكرتا هذا محوها أرضية فرها بدن له سنة دكسيتك قدام أنت امتحانك كل دعي محوها وح قدر إلهي كل دعي هسيا شكوى ما أنت جوجا محوها امتحانك السجية وحن كلت لنا يا إن إلهي كبقان إن إلهي عبسدي سي كد دالان قف إلهي كبقى إلهي مد يعي سبحانه وتعالى إلهي بإسجاب بلن قاضي وإلهي إنه كبري لكن حشرد إن إلهي سلم وجبقت واتقوا الله ويعلمكم الله marka walaalayaal si ilaahay tacliinta inuu sahlo oo xigmada ilaahay qalbigeena u galiyo waa inaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqnaa waliba si dhab ah oo muxuu ahaa cabsi dhab ah ilaahay laga baqo waxaan dhamaantiin idin rajaynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmiga ilaahay inuu noo sahlo muxuu ahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala si aan ilaahay cabsidiis muxuu ahaa inoogu fududaato waxaan u baahnaa cilmi yeelan dhamaantiin waxaan idin rajaynayaa ilaahay inuu tacliinta waxbarasho idin fududeeyo si gaar ah qof walba arday muxuu ahaa wadada cilmiga hayana ilaahay cilmiga u sahlo cilmigan Allah ka dhigay cilmi naafic ilaahay ina siiyo iyo xigmad wajazaakumullahu khayr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh